Bismillahirrahmanirrahiim. Waanigo Macalin Maxamed Ibrahim. Halkan waxaan kasii wadanaynaa casharadii imtixaanaha noo ahaa aan ku baranaynay software-ka la magac baxay Tally ERP9. Software-kan oo isticmaalaan kambaniyada waaweyn iyo ganacsatada yarka bay isticmaali karaan. Markan waxaan qaadanaynaa casharkeenii labaad ayaanu qaadanaynaa oo la xiriira final accountiga. Marka waxaan rabaa final accountiga inaan mataqaanaa practical ahaan aan ugu sameeyo software-ka. Already halkan waa theory ahaan waaye laakiin waxaan rabaa practical ahaan inaan ugu sameeyo muxuu ahaa software-ka. Wuxuu noqonayaa casharkii labaad ayuu noqonayaa final accountiga la xiriira aan rabo inaan ku sameeyo software-ka Tally ERP9. Marka already question-ka waa la siiyay waa tan xaggan iyo su'aasha question-ka ay taala oo ah from the following trial balance preparing final accounting al-Ma'ruf company traders for the year ending 31/3/2019. al-Ma'ruf company ayaa rabaa inaan xisaabiyo marka final accounting ay diray marka theory ahaan waa sameeyay oo profit and loss waa soo saaray trade profit waa soo saaray trade accounting waa soo saaray profit and loss account waa soo saaray balance sheet kana soo saaray marka waxaan rabaa in mataqaanaa muxuu ahaa practical ahaan aan u isticmaalo software-ka. Marka waa kan tagayaa software-ka waan joogaa already company-ga waan soo asaastay sida loo asaaso company-ga casharadii ka horeeyay aan kusoo qaadanay mar raba inaan waqti ku lumiyo aan dib ugu laabto sida loo asaaso company-ga waxaa la dhahaa waa kan al-Ma'ruf company trading ayaa la dhahaa company-gayga waa bishii afraad kowdeedii 2019 2020 bishii saddexaad 31 marka waxaan rabaa inaan sanadka xisaabiyo 2019 al-Ma'ruf inuu mataqaanaa loss ku sugnaa ama inuu profit helay marka su'aashu way la siiyay marka xaggan ayaa ka bilaabaynaa waa kan waxaan la siiyay debit balance ka qaybta waa tan credit balance waa kan marka casharkeena toos ayaan u galaynaa marka company-ga way asaasan yahay marka waxaan rabaa final accountiga inaan ku sameeyo muxuu ahaa practical ahaan muxuu ahaa Tally-ga marka saa yahay oo company ku asaasan yahay waxaad tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay accounting info dan marka accounting info ku dhufato waxaad ku dhufanaysaa meeshan hoose oo ku qoran tahay ledger dan waxaad tagaysaa marka waxaa jira laba ayaa jira single ledger iyo multiple ledger ayaa jira marka single ledger hal account ayaa ku asaasaysaa marka waxaa leedahay create dan waxaad qoraysaa opening stock opening stock waa la siiyay oo final accountiga ayaa laga siiyay waa tan waaye oo ah opening stock 2500 opening stock waxay tagaysaa final accountiga sameynayso trading accountiga qaybta debit side-ka ayay tagaysaa marka opening stock kale xaggan under waxay hoos tagaysaa direct expenses ayay hoos tagaysaa dan halka waxa ku qoraysaa lacagtii 2500 kan halkan ayaa laga soo siiyay waa la siiyay waa tan waaye opening stock waa tan lacagta ku furay oo sanadka 2019 lacagta lagu furay bay ahayd 2500 ayay ahayd qiimaha alaabta soo hartay gaaraysay marka waxa leedahay enter save ayaa leedahay marka opening stock qaanada ku sabrayso waxa leedahay skip ayaa leedahay laptop-kaaga dan waxaad tagaysaa ama computer-ka dan waxaad tagaysaa multiple ledger way tagaysaa waxaa leedahay create oo hadda waxaa abuuraysaa dhacdooyinka dhan baa aruus transactionada dhan ayaa hadda sameynaynaa waxa ugu horeysa cash lacagta aan gacanta uu ku haystay mataqaanaa al-Ma'ruf 2019 waxay ahayd $3,000 ayay ahayd waxaa leedahay cash in hand waxay tagaysaa current asset waxay tagaysaa balance sheet-ka ayay tagaysaa mataqaanaa balance sheet-ka ay tagaysaa qaybta asset-ka ay tagaysaa dan enter ayaa leedahay enter cash maxaa ku xigay waxaa ku xiga purchases in alaabta soo iibsatay qiimadeedu wuxuu kacday $5,000 ayuu kacday 5000 dan waxaa leedahay purchases waxay hoos tagaysaa under purchase accounting lacagta maxay 5000 dan purchase maxaa ku xigay waxa ku xigay wages oo ah journati wages waxay tagaysaa direct expenses waaye trading account qaybta debit side-ka ay tagaysaa oo wages lacagtu waa imisa waa 1000 waa $1,000 wages maxaa ku xiga
waxa ku xiga salary mushaarka bixinay waxa waaye wuxuu noqday $1,000 ayuu noqday salary wuxuu noqonayaa indirect expense profit and loss account-ga qaybta debitka ayuu tagayaa waa maxay 1000 ayaan bixinay salary maxaa ku xiga insurance oo ah caymiska insurance maxay noqonaysaa indirect expense profit and loss account-ga qaybta debitka ay tagaysaa oo ah 900 ayay noqotay waan la siiyay 900 ka meesha ka keenay darto inuu ogaato waa halkan waaye insurance waan la siiyay waxa ku xiga carriage on purchases maxay noqonaysaa direct expenses profit trading account iyo qaybta debitka ay tagaysaa lacagtana maxay waa noqotay carriage on purchases 500 waxaa ku xiga furniture waa maxay waa fixed asset oo balance sheet-ka ayuu tagayaa furniture waa maxay waa fixed asset 2000 I think so yeah 2000 yes furniture 2000 maxaa ku xiga sales return alaab laga iibsaday ayaa lagu soo celiyay marka sales waxay hoos tagaysaa sales account-ga oo sales-ka ay hadda ka go'aysa trading account qaybta credit-ka ay sales-ka ka go'aysa waa 600 dan meeshan hadda credit ku qoranta DR ayaa ka dhigaysa debit siday uga go'do sales account-ga dan maxaa ku xiga sales rent kirada bixina lacagteedu waa imisa 800 rent waa maxay rent waa indirect expense profit and loss account qaybta debit set-ka ay tagaysaa oo ah 800 rent waa 800 rent maxaa ku xiga machinery waa imisa qiimihiisu machine ayaa soo gaday machiinkaas oo qiimihiisu ku kacay $5,000 machinery waa maxay waa fixed asset balance sheet-ka ayay tagaysaa qaybta mataqaana asset-ka waxaa machinery ku xiga debtors oo ah deynta inaga naga maqan oo ah 4000 debtors maxay hoos tagaysaa sundry debtors ayay hoos tagaysaa waana 4000 debtors maxaa ku xiga discount allowed waa expenses waxay hoos tagaysaa profit and loss account qaybta debit side-ka discount allowed waa indirect expenses oo imiso discount oo sameynaa 400 yes 400 discount allowed maxaa ku xiga bill receivable oo ah 1000 bill receivable muxuu noqonayaa current asset ayuu noqonayaa oo balance sheet-ka ayuu tagayaa 1000 marka qaybta debit-ka hadda waa dhameen waxa u gudbinaa qaybta credit balance-ga waa maxay waa bank overdraft waxaas ma bank overdraft waxa waaye lacag dheeraad ah ka soo qaadatay bankiga waana liability bank overdraft waxay noqonaysaa current liability lacagtaduna I think so 1000 yes 1000 oo credit ay noqotay bank overdraft waxa ku xiga sales oo alaabta sales ah iibiyo sanadka lacagtooda waxay noqotay 9000 oo 9000 halada sales account sales waxay hoos tagaysaa sales account ay hoos tagaysaa sales trading account-ga qaybta credit side-ka ay tagaysaa waxaana ka go'aya sales return
waxaa ku xiga purchase return oo 500 ah. purchase return purchase waa maxay? purchase account ayuu hoos tagayaa waa 500. marka meeshan dhibisa noqonaysa waxa ka dhigaysaa credit ayaa ka dhigaysaa. purchase return wax maxsaas wax alaaba iibsatay ayay celisay marka purchase-ka ayadana ka go'aysaa. purchase maxaa ku xiga capital. capital waa maxay? waa 15000. capital waxay hoos tagaysaa capital account waxay ahayd 15000 oo balance sheet-ka qaybta liability-ga ay tagaysaa. commission receivable. commission receivable wuxuu hoos tagayaa indirect income. profit and loss account-ka qaybta credit side-ka ayuu tagayaa indirect income. qiimihiisuna waa maxay? waa 1200. waxaa ku xiga creditors. deenta anaga lagu leeyahay waxay gaaraysaa qiimaheedu 1000. creditors waxay tagaysaa sundry creditors. lacagta lagu leeyahay waxay noqonaysaa creditors 1000. marka waxa u gudbaynaa hadda qaybtii adjustment-ga. adjustment-ga ayaa rabnaa in hadda u gudubno. adjustment-ga marka waxa hal dhacdo ayaa nagu cusub. adjustment-ga inta waa 5 adjustment. marka badanaa waa afarta kale waa soo qaadanay laakiin waxa nagu cusub kan ah depreciation-ka oo ah qiimo dhimis, qiimo dhac ku yimi muxuu value of asset, qiimihii asset-ka. outstanding salary waa soo qaadanay. closing stock waa soo qaadanay. prepaid insurance cashirka hore kusoo qaadanay. outstanding wages na cashirka kusoo qaadanay. marka kan ayaa nagu cusub oo ah depreciation on machinery 10%. tan farta cas ku qoran tahay. marka depreciation waa maxay? waa decrease of the value of asset. waa qiimo dhac ku yimi asset-ka oo ama hantida maguuritaanka ah oo wuxuu ku yimi machinery-ga awal waxa ka soo bixinay hadaayo hore waxa ka soo bixinay 5000 ayaa ka soo bixinay oo waa kan machinery-gan ayaa muddo ka bacdi rabnaa inaan iska iibino. marka 10% ayuu qiimihiisa ku fadhiyay hoos uga dhacay. marka horta waxaan sameynaynaa adjustment-ga ayaa sameynaynaa. hadhow ayaa ka jaraynaa. waxaa ugu horeeya outstanding salary. outstanding salary waxay noqonaysaa current liability noqonaysaa. balance sheet-ka ayay tagaysaa. balance sheet-ka ayay mar tagaysaa mar kalena salary-ga ayay ka go'aysaa. maxaa ku xiga outstanding salary-ga? waxaa inoogu xigay closing stock oo 4500. closing stock marka adjustment-ga every adjustment is coming twice. adjustment-ga markasta wuxuu yimaadaa laba jeer ayuu yimaadaa oo laba qaybood u galaa. ama mar wuxuu galayaa trading account-ka ayuu galayaa ama mar wuxuu galayaa profit and loss account ama mar wuxuu galayaa balance sheet-ka. marka closing stock laba jeer ayuu imaanaya. mar wuxuu galaa muxuu trading account-ka qaybta credit side-ka marna balance sheet-ka qaybta asset-ka ayuu tagaa. marka hadda kan waxaa leenahay kii tagay waxa way closing kii wuxuu tagay trading account-ga direct expenses direct income. kan labaad waa closing stocks ayaa leedahay. is ayaa ku dira soo kala garno hadhow. wuxuu isagu noqonayaa current asset ayuu noqonayaa oo hadhow wuxuu tagayaa balance sheet-ka qaybta wuxuu tagayaa asset-ka. waxaa ku xiga prepaid insurance oo ah 400. prepaid insurance waxay noqonaysaa current waxay noqonaysaa asset. maxaa ku xiga? waxaa ku xiga outstanding wages. outstanding wages waa mataqaanaa gunna lacag aan mushaar aan bixin ama muxuu waxa dhigi karaa wuxuu noqonayaa joornaanti lacag aan uu bixin laakiin bixinayno mustaqbalka ama mar dambe oo ah 300. outstanding wages outstanding wages wuxuu imaanayaa current liability gu imaanayaa.
then maxaa ku xiga lastic ugu dambeeya waa maxay waa depreciation oo ah 10% ku yimi machinery marka tan nagu cusub waa dhacdadan oo ah on machinery waxaan qoraysaa depreciation on machinery oo every muxuu ahaa adjustment wuxuu yimaada twice laba jeer marna balance sheet-ka machinery ayuu ka go'ayaa marna profit and loss account-ka qaybta wuxuu imaanayaa debit side-ka waa indirect expenses marka dhammaan waa dhammaan adjustment-gii marka waxaan sameynaynaa transaction dhacdooyinka ayaa sameynaynaa skip ayaa leedahay waxaad tagaysaa accounting vouchers ayaa tagaysaa marka accounting voucher waxaad tagaysaa meeshan ku qoran tahay journal oo ah F7 markaad F7 tagto waxaad soo eegaysaa adjustment-gii kulli waxaad sameynaysaa markan muxuu ahaa transaction-kii ugu hore waa maxay waa outstanding salary dhacdada ugu horeysa waa outstanding salary journal entry ahaan waxay noqonaysaa salary account to outstanding salary account qiimaduna waa 500 marka waxaad tagaynaa software-keeni waxaa leenahay salary account oo ah 500 to outstanding salary ka dooranaysaa listiga waxaa inoogu xigay closing stock oo ah 4500 marka closing stock muxuu noqonayaa journal entry wuxuu noqonayaa closing stock account ma wuxuu noqonayaa trading account to closing stock account marka kana tagaysa waxaa la qoraysaa closing stock account 4500 iyo closing stock oo wuxuu ahaa kii ahaa muxuu ahaa trade account-ga direct expenses waxaa closing stock waxaan ku xiga prepaid insurance maxay noqonaysaa prepaid insurance account to insurance account prepaid insurance account oo lacagtooda waa imisa think so 400 yes 400 to insurance account maxaa inoogu xiga outstanding wages maxay noqonaysaa wages account to outstanding wages account or 300 I think so bismillah yes 300 to outstanding wages account marka transaction-kii ugu dambeeyay nagu cusbaa waayay waa kan marka depreciation on machinery muxuu noqonayaa journal entry ahaan wuxuu noqonayaa depreciation on machinery account to machinery account oo 5000 ayaa mataqaana qiimihiisa machinery wuxuu ahaa 5000 haddii lagu sameeyo 10% maxaa soo haraya 500 marka 5000 haddii laga gooyo 500 maxaa soo baxaya 4500 ama Soomaali ahaan 5000 ayaa ka soo bixinay machinery-ga 5000 aan ka soo bixinay waxa lagu sameeyay boqolkiiba 10 ayuu hoos u dhacay qiimihiisa marka 5000 oo dollar ayaa wax ka goynaysaa 500 marka maxaa soo haraya 4500 ayuu machinery qiimihiisu saxda ah noqonaya currently waqtiga la joogo hadirtaan marka waxa leedahay depreciation on machinery account oo ah 500 ayuu noqday to machinery account marka maasha Allah kulli waa dhameynay marka hadda waxaan raadinaynaa profit and loss account ama trading account waxaan raadinaynaa trading account waa kan waxaan trading account ka raadinaynaa gross profit kan oo ah 4100 profit and loss account maxaa ka raadinaynaa gross waxaan ka raadinaynaa net profit oo waa 1600 balance sheet kana waxaa rabnaa balance ku xaran inuu noqdo tally ama equal oo balance sheet wuxuu ku sheegayaa financial business position ganacsiga meeshu marayo oo wuxuu noqday 19400 xaqana 19400 waa saxsan marka waxa rabnaa sidan saxda ah warqada hadda ku haysano inuu software kana na tuso oo software-ka trading account-ga inuu soo baxdo 4100 qaybta kale waa maxay waa trading account waxa waa trading account qaybtan hoosana oo halkan by gross profit ka bilaabmayso waa maxay waa profit and loss account qaybta hoosana waa balance sheet marka waxaan tagaynaa software-kii waxaan ogaanaynaa inuu profit ku jirno ama loss marka skip ayaa leedahay waxaad tagaysaa
balance waxaad tagaysaa profit and loss account dan waxaa leedahay meesha afwan details wixii faahfaahsan baan rabaa marka waa ka uu wixii gross profit ka haysto waa maxay waa 4100 net profit ka haystana waa maxay 1600 oo hadda almacruuf company wuxuu ku sugan yahay faa'iido ay ku sugan yahay wuxuu bisha sanadka wuxuu faa'iido dhigana sanadka $1600 gross profit kana waa maxay 4000 marka gross profit ku waxa way waa faa'iidadii guud way tan waa maxay faa'iidadu saafiya marka tan expenses ka laga ma jirin kharashaadkii waa faa'iido guud soo baxday tan waa maxay waa faa'iidadii saafiya 1600 ay ku sugan yahay waanu saxsanahay oo gross profit ku wuxuu 4100 haddaan isla eegno waa kan jadwalkii aan sameynay waa kan 4100 gross profit kii net profit kan waxay 1600 marka waxa eeganaa qaybta hoose oo ah balance sheet ka balance ku waxa 90400 balance ka saas oo looga shaqeeyo gross muxuu net profit ku soo qaadanaysa waxa ku daraysaa capital ka ay ku daraysaa waxay noqonaysaa 6600 marka maxay sanaa 90400 xagga 90400 equal ayuu noqday balance sheet kii marka always ama must be waa inuu equal noqdo balance sheet ku marka skip ayaa leedahay waxa tagaysaa balance sheet enter ayaa leedahay detail ayaa leedahay waa ka 90400 waa saxsanahay 90400 sidaas ayaa loogu sameeyaa final account-iga daarta inaad ku sameyso taaliga very easy it's not difficult ma adka marka hadda tan faahfaahinta kooban ku sheegay warqadan waa kambanigaaga xaalad ku sugan qaybta asadka waa dhinaca way qaybta liability-na waa dhinaca way marka casharkeen maanta inta ay ku saabsanaanaya waxa kaliya oo nagu cusbaan oo nagu soo korortay maxay ahayd depreciation kaas marka waa sameyn kara inaad depreciation kaliya ayna tuso laakiin waxaan jeclahay wax mira ka dhala inaan wax kasta mataqaana si practical ah u aragno inuu kabani ku sugan yahay loss ama inuu ku sugan yahay khasaaro haddaan depreciation kaliya soo qaadan lahaa maan arki lahayn muxuu ahaa kabani wuxuu ku sugan yahay marka hadda isla qeeno waa kan depreciation halkan ku qoran tahay depreciation ki hadda isla qeexna depreciation maxay noqonaysaa reduction in the value of asset over time due in particular to wear and tear waa hoos u dhac ku yimid qiimaha hantida waqti kadib gaar ahaan xirashada وين محن قرصة حرش محن قرطة use إلا استعمال أسدك أو تير إنه جحمي وقيمة دمس قيمة دع كويمي أسدك أو أسدك متقن إنه قيمي سخاص ودعو مركا علاب سو يبسط تصال مركا جاري سو يبسط جاري هذه سنة كسور يكتو الضربت إنا إيبسو هذه لو تنقل لجاسي جاري سنة كبعدي لو تنقل لجاسي سماه ضربت إنا إسك إيبسو وحنقنا إياه inuu 20 kuma ka soo bixiso inuu boqolkiiba 10 noqdo ama boqolkiiba 20 inuu qiimihiisa hoos u dhaco ay noqonaya gaariga marnaba lagama yaabo in 20 ku iibiso in qof haddaan mas'uuliyada garamayo laakiin asadku markasta qiimihiisa hoos ayuu dhacaa muddo ka bacdi marka la isticmaalo marka casharkeena maanta inta ayuu nagu saabsanaanaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka haddaa walaal fahanteen si walaalihin kale la sii sheergareeya ogeysiiya like commentiga kullina nagu caawiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.